wafdi ballaaran oo isugu jirta cuqaal waxgarad iyo gudida garaadaga oo uu hogaaminayo caaqil maxamuud maxamed jaamac oo ah gudoomiyaha guud ee beelaha deega gobolada saaxil togdheer sool iyo sanaag ayaa waxay kormeer laba cisho qaatay ku soo mareen deegaano badan oo hoos yimaada gobolada togdheer buuhoodle iyo saraara ujeedka wafdidani ballaaran ayaa ahayd inay muujiyaan taageerada ay u hayaan xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo murashaxiintiisa iyo waliba inay dadka deegaanadaasi ku soo booriyaan ilaalinta nabadgelyada ee waqtigan lagu jiro doorashada degmada nasiyanahay waxaanu isku wacyigelinaa culimadayada iyo codkarkayaguba inaanu ilaalino ammaanka waxa weeye oo waxaanu ku dhisanahay jamhuuriyadda Soomaaliland aynu ku hana qaadnay waamiga bilidhi waa kulmiye been yaan la isu sheegin kulmiye way laba jir haday tahay anigu waxaan ruudiin sheegay haduu laba jirka yahay inay xididkoodu raacay xididkana lama qali karo lama soo saarkay qadiyada xididkooda inuu raacay kulmiye waxaanu leenahay annagu horta hadii aanu nahay dumarka waxay yiraahdaan rag geelaas hal dabal uu rumay hadaanu nahay dumarka waxaanu nahay hal dabal mid nagama maqlo garab taaganahay kulmiye xisbiga kulmiye waan garab taagan aad bas sharaf leh ayaan idin soo dhaweynaya magaalo ahaan iyo xisbi ahaanba aad baan idin soo dhaweynaa inta waxay raaco aan idinku bushaareynaya hadii ay tahay degmada Baldiig waxaan idinku bushaareynaya degmada Baldiig inaan loo tilmaamayn xisbiga kulmiye inay dhamaanteed saqiir iyo kabiir roolay caruur rag iyo dumar ay ka siman tahay xisbiga kulmiye markii aanu qaadanay ujeedka beesha habar jeclo halka ay dhamaanteed isku wada raacday helayna warka nuxurkiisa noo dhacay dhamaantayo waxaanu laabta horta ku wada gutanay halka ay noogu taliyeen waxgaradkayagu inaanu wada jeesan tuuladan jaaqabar waxay la tahay ninkii ogi waa ogi aftidiinan wanaagsan ee sida wanaagsan loo waaninaysa ee xisbiga noo hanuunina saarta markii hore ugu mahadsantiin laakiin waxaanu idin sheegaynaa ninkii yiri ana faydan waxba hay farin jaaqabar waa kulmiye awal iyo aakhir intii ay jirtay xisbigaasi jiray ilaa halku ka soo bilaabmay ilaa maantadan waa kulmiye waa wafti meel walba isaga timi hadii la ka dhigaayo wanaag waxaan dooni mayso hadii ka dhigaayo anaguna magaaladu waa kulmiye aad noogu socotaan in aad tahay kormeerkii beesha ama dantii guud ee beeshu qaadatay anagu dantii guud ee beeshu qaadatay ee xisbigu qaadatay ee xisbigaanu iska leeyahay waanu qaadana anagu waxaanu nahay hadii beesha aanu u hadalno ama deegaanka coodan leba aanu ka hadalno waxaanu nahay dad isku mid ah dad xisbiga u soo halgamay imikana dhiig iyo maalba iyo nafba u horaya oo farta ula diyaar ah oo aan meel kala marinayn baanu nahay sub lama socono horta marka hore waxaanu la soconaa wixii aynu ku tashanay hore ugu tashanay dibna aynu ugu tashanno baanu la soconaa waxaas muxuu ahaa ayadaan suldaan inoo maqnayn ayadoo aan caaqil inoo maqnayn ayadoo aan waxgarad inoo maqnayn ayadoo aan siyaasi inoo maqnayn ayadoo guddida guud ayna maqnayn ayaynu waxaynu ku tashanay inaynu xisbiga kulmiye taageerno wafdi baanu ahayn wafdi habar jeclaanu ahayn wafdidii guddidii sare ee guud iyo tii hoose iyo cuqaal iyo waxgaradba waanu u wada soconnay waxaanu u soconnay iyada oo raggii aanu ku wacdi gelin lahayn nabadgelyada uusan ahayn haddana allaha weyn ee waaxidka ah inaynu la kaashanno oo insha allahu tacaala ilaahana ka barino inana ku dadaalno nabadgelyada doorashada iyo haddii alla kuu ruran yahay xusbigaas aan ahay muddo yar baa inaga hadhay dadku sidiisii buu ahaanayaa wixii nabadgeliyo ay ku dhaafto doorashaduna alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaanu nahay wafti soconaysay oo xagga nabadgelyada iyo xagga xusbiga iyo xag dhinac walba ka soconaysaanu nahay waxaanu dadweynaha reer Dhoqoshay u sheegaynaa oo aynu isla ognahay waxaan leenahay reerku waa xusbiga kulmiye codkiisuna waa meel madaxweynaha uu diyaarka u yahay inuu ugu ridana waxa weeye madaxweynaha hogaaminaya xusbiga Muuse Biixi Cabdi ee imika hogaaminaya gudoomiyaha xusbiga kaasoo reerku isla qaatay kaasaa degmooyinka iyo gobolada iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba la isula qaatay wadankana idinkaa ku hadhaya dadka kale xusbiyadu way guurayaan marka ay kala helaan way guurayaan oo way iska tagayaan
meesha idinkaa ku hadhayoo leh magaxum iyuu idin raacin dhexdiinnana colaadiyay kala gelin naanaysila yaana idinkala raacin wakhtigana ha iska luminina ballan baynu lahayn baala waa isu xignaa ogow bowda walaala maalinba bayladu waa mid hoggaamiyaha xusbiga kulmiye maanta wuxuu ku suntan yahay ama siyaasad dabadeed ha ahaato ama mid daakhiliyeed ha ahaato hoggaamiyaha ugu waxqabadka badan leh ee ugu wanaagsan ee ugu dimuqraadisan ee isagoo teeramkii labaad u hadhay maanta tanaasulay ee uga tanaasulay in cidda xusbiga kula jirtaa ay noqoto maanta musharax isagana aad iyo aad baynu madaxweynaha ugu ducaynaynaa aad iyo aadna wuu ugu mahadsan yahay waxaanu ku soconnay sida la sheegayo qodobo ugu horeeyo nabadgelyadu qodobo ay ugu horrayso iska warhayn isku xidhnaan talada wixii aan gaadhin ee aan tala soo gaadhin wixii lagu tashaday inaanu gaadhsiino haddii aanu odayaashii iyo sida la sheegayo salaadiintii iyo siyaasiyiintii iyo ganacsatadii reerka iyo waxgaradkii iyo cuqaashii iyo wadaadadii iyo culimadii iyo haweenkii wixii waxa weeye gobolka togdheer iyo inoo joogay waddankaa la joogo waxaanu isla qaatay markii hore waa ogeydeen garadag markii labaadna burco ayaa dib loo isla qaatay oo warkii labaad ka soo baxay oo laysu wada yimi oo ciddii wax lala galay iyo ciddii markii hore wax isugu keeni jireen mar labaad dib loogu cusboonaysiiyey xabiib ciga xasan universal TV magaalada burco.